waxaan rabaa inaan uga hambalyeeyo munaasabadda ciidul fidriga dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan Soomaalida gaar ahaan reer Jubbaland iyo dhammaan intii muslimiinta soo socotay bishaas waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum saalih al-a'maal ilaahay sanadkan sanadkiisa nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga dhigo kuwii uu nagu daro kuwa naarta ka xoreeyay bisha Ramadaan fadligeeda waad garan kartaan fadaaisha ay leedahay bisha aad baa looga soo hadlay laakiin caawa oo bisha ay bilatay oo bari ay tahay maalintii ugu horeysay Shawaal ama ahayd maalintii ciidul fidriga sunan baa jirta dadku inay raacaan la rabo oo ay ugu horeyso galabta gobolka dhacay ilaa bari salaada inta ka horeysa dadku inay bixiyaan zakaatul fidrigi oo ah wax ka maydhaya dadka la baxaya masaakiinta sadaqaysanaya quudinaya oo infaaq u ah oo nafaqo u ah kuwa masaakiinta ah oo ay kaga kaaftoomayaan maalintaas islaamku aad buu u weyneeyey waad garanaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu Madiina tagay reer Madiina oo 2 maalmood oo ciid ahayd baa islaamku labadan ugu bedelay waxaan markaa aad ugu dardaarmaynaa dadka muslimiinta guud ahaan in la iscafiyo tasaamaxa la badiyo masalaha ciidda la isugu yimaado waxaa min sunna dadku inay ku tukadaan meelaha banaanka oo loo soo baxdo banaanka la isugu soo baxo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa gabdhaha guryaha ku jiray maxajabaadka makhabiyaadka soo bixiyaan la oran jiray iyo kuwa dhiigga iyo kulli si shicaarka islaamka loo muujiyo waa maalin markaa u baahan dadka muslimiinta inay iswada cafiyaan la isdhaxgalo waa maalin u baahan in dadka masaakiinta la quudiyo oo qofku uu la tabin oo agoonta iyo kuwa macawqiinta curyaamiinta iyo kulligood in la taakuleeyo loo baahan yahay waa maalin weyn islaamka aad ugu weyn waxay maanta aad farxad ugu tahay dadkii soo soomanaa bisha waayo qofka muslimka ee sooma laba farxadood buu leeyahay mid waa maalinta oo kale markii ciidda ay tahay midna waa maalinta qiyaamaha marka la yiraahdo ilaahay uu yiraahdo awa ku soomanaya albaab kaligood ay leeyihiin inta jannada looga furo markaas ay markaa halka ka galayaan ilaahay la kulmayaan way soonka waad garanaysaa ilaahay wuxuu yiri amaasha kale oo dhan moon oran anaale laakiin soonka wuxuu yiri anaa iskale anaana ka sababta wax cibaado qarsoon oo qofku isaga ilaahay ka dhaxaysa waxa uu qarsado iyo waxa uu meel la galo oo dhan marka waxaan aad ugu farayaa dadka kula dardaarmaya in la iscafiyo walaalnimada laga shaqeeyo midnimada laga shaqeeyo maalinta la weyneeyo dadka masaakiinta ah wax la siiyo la bixiyo zakaatul fidriga hadduu qofku bixin waayo oo maanta uu bixin waayo gobolka hadda intuu dhacay inta ka dambe ilaa salaada inta ka horeysa sadaqa oo sadaqaad kamid oo may noqonaysaa fadiiladii ay lahayd zakaatul fidriga way ka buraysaa culimada ka hadashay qof kasta oo muslina adoon iyo xor ilmo yar iyo ku weyn iyo mid walba way ku waajibaysaa waa laga bixinayaa qof kasta oo mas'uul ah ka bixinaya ciduu mas'uulka ka yahay marka taana waxay la tahay dadkana waxaan adigu cunayna siinina raashinka aad adigu cunto ee adiga qutul qaalibka ku aad adigu jeceshaad naftaada la rabto si ka dadka masaakiinta ana hal iscafiyo ilaahay Soomaaliya oo sidan ka sii fiican oo aad u fiican oo barwaaqaysan hana tuso ilaahay waxaan ka baryaa dadka qulubtooda inuu isu soo jeediyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh